xukuumadda Somaliland ayaa sheegtay inaanay dawladda Djibouti wax xidhiidh kala soo sameeynin xariga internetka oo magaciisu yahay deer oo ay dawladda Djibouti ku dhawaaqday inay soo marinayso badda Berbera. Ra'iisul Wasaaraha Djibouti iyo xukuumaddiisa ayaa isniintii munaasabad soo dhaweyn ah u sameeyay xarigan, waxayna sheegeen inay xarigan deer lagu magacaabo ay dawladda Djibouti maalgelisay 89% lana marin doono Berbera, Muqdisho iyo Mombasa. hase yeeshee wasiirka boosaha iyo isgaarsiinta ee Somaliland Dr. Cabdiweli Sheekh Cabdilaahi Suufi oo wargeyska Geeska Afrika weydiiyay in dawladda Djibouti ay dawladda Somaliland ka heshay ogolaanshiyaha xarigan la soo marinayo badda Berbera, waxa uu yiri maya dawladda Djibouti ilaa hadda nagalama soo xidhiidhin arrinta xariga internetka ee Berbera. ilaa haddana golaha baarlamaanku waxa uu ogolaaday oo qura shirkadda Zoom Cable oo loo ogolaaday muddo 25 sano ah oo ah wajigii hore. haddii ay dawladda Djibouti naga codsato waxa loo eegi doonaa xeerka, oo haddii xeerku ogolaado markaas ayaa liisan ogolaanshiyaha la siin doonaa, baarlamaankuna waajibaadkiisa ka gudan doonaa, laakiin ilaa hadda nagama soo dalban. wasiir Dr. Suufi oo la weydiiyay sababta ay xukuumaddu uga howlgali weyday inay Somaliland yeelato xarig internet oo badda ah oo iyada u gaar waxa uu yiri xukuumad ahaan, dawlad ahaan iyo wasaarad ahaanba waanu wadnaa qorshaha aynu ku yeelan lahayn internetka casriga ee xawaarihiisu sareeyo mustaqbalkana haddii Ilaahay yiraahdo waynu yeelan doonaa, waanay naga go'an tahay. markabka xarigan internetka ee badda walwaalaya ayaa u soo jahaystay dhanka biyaha Somaliland iyadoo oo weli aanu ogolaansho ka helin xukuumadda Somaliland. arrintan ayaan la ogeyn sida ay dawladda Djibouti ugu suurtagali doonto.